بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. bulsho waan salaamay salaanta salaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaan la socodsiinayaa oo keliya waad u malaynayna dhammaantood ogtiinba waxyaabihii iyo fikirkii la soo dejiyey dowladda Sweden iyo ay soo dejisay oo ku aadan khuseeya qaxootiga, especially dadka maqan yahay oo dadka keensanaya hadduu ninkaa maqan yahay iyo haddii naag kaa maqan tahay iyo haddii carruur kaa maqan tahay. sharciyadii way adkeeyeen, wayna si awalba waa adkaayeen, haddana way sii adkeynayaan. kuwa haddase ugu adag waxa weeye waxaa lagu soo daray oon keliya in qof keenaya horta waa waa inuu 2 sano Sweden degaya. 2 sano ha deganaade waa inuu haystaa guri iyo shaqona waa inuu haystaa fasharigan, yani inuu isbeeli karo waay. 2 sano markuu degan yahay kabacdi buu dalban karaa qofkiisa. 2 sano wuxuu sameeyay sharci buu helay, shaqo helay, guri buu helay, markaa kabacdi buu dalbanaya. qofkaas la keeno oo la keenaya waa inuu beeli karaa bardo. xataa waxaa lagu sii diray markuu beelo shaqadii, yani sharciga la sii sayn jiray sanad ama 2 sano waa la soo gaabinayaa, mar walba waa la jadiidinayaa in muddo cadadkasi lama soo qorin intay tahay. marka sharciga markuu ka dhammaado haddii sanad la siiyo hadda waa laga jedina. waxaa leeyahay shaqa ma heshay, biilkii sidii ma yahay, adi maarbeeslo, waxyaabahaasoo dhan. marka waxaanu kula talinayaa dadkii dadka maqan yahay oo raba inay ku khasban yihiin inay hawl sameeyaano arrimahaasaa lagaga baahan yahay. kuwii raba inay ka soo guursadaan Afrika ama se ninaha soo guursada ama naaga soo guursadaan, war meelahaagan hawshaa isku bilina, meelahaagan ka faa'iidayso.